horta aqalka miyigu imisuu u qaybsamaa su-aashaas waxaan ku horraysiinaya jawaabteeda daahir afqarshe. aqalka soomaalidu ay dhisato marka u horreeya waxaa loo yaqaanaa saari iyo gurgu. saari waxaa la yidhaahdaa aqalka intaa dhisan ee muuqanaysa, gurgurkuna waxa hoos yaalla. saarigaasaa laba u qaybsama, qabax iyo dad buu noqdaa. qabax waxaa la yidhahdaa wixii qori ka yimi ee aqalka ku taagan yahay, markaasuu leeyahay dhig iyo udub iyo lool iyo dhigaha iyo loolka mid u dhexeeya oo isla jirjiricsan oo la yidhahdo jalalooti. intaas waa inta uu ku taagan yahay aqalku. haddii sare loo qaadayo oo uu intaa ka weyo aqalada aroosyada iyo waxaasa, tiirarmaa ka hooseeya. dhigahan iyo waxaa lagu dheereeyo waa marka aqalku dabadeed cirkaa tegaya ee sare isu taagaya oo arlada oo dhan ka dheeraanaya uu labadaryaala noqday. aqalkii xagga loo soo foorinaya laysu soo wada horkeenaya oo tiirarkaasina waqti bay galaan marka aqalka la banaanadinayo la doonayo in laga sameeyo aqal weyn oo aroosa. amase dadka beeralayda ahee aan guurguuraynin, aqalka dadka badani seexday xoolaha qaar xitaa ay hooyaan ee aan werigii la raraynin ee iska adduunida dhan baa tiirarkaasu ay soo galaan. waayahay wax allaale wixii dusha laga saaraana dad baa la yidhahdaa, waa wixii lagu daday. dad qof waliba waa yaqaanaa waa wax lagu awday. markaa kaasina wuxuu kala kacayaa wax aws laga sameeyey iyo saanta xoolaha oo la yidhahdo lama. lo-duba ha u badatee, geeluna wuu ku jiraa. saantaas iyo wixii caws laga sameeyey yuu u badan yahay dadkaasu, iyo wax maydhax laga sameeyey oo kebda la yidhaahdo, iyo wax mare laga sameeyey amase haragga xoolaha dhaldhashay oo waa geedkan la yidhahdo aloorka oo duur yar yar oo la safay, iyo xadhiggaa oo laysku sameeyado xadhiggu ama yahay haraggaa xoolahee aan sheegay oo lagu qurxiyey oo meel line loo sameeyey, ama maradii oo la sooxay oo dabadeedna lagu tidcay bahalkaas oo noqonaya geed aamin ahoo sida saanta oo kale ah, quruxuna leh, wax raagayana ah oo cawska ka laxaadroon oo alaabada aad iyo aad haweenku ay u qiimo geliyaan ka mid a. markaa aloolkaa iyo saantaa iyo cawskaa iyo maydhaxdaa afartaa jaad ee laga sameeyey yaa dad la yidhaahdaa. xadhigguna waa ka dhexeeya oo dabeedna waxaa isku xidhay markaa waa xadhig. marka intaasu aynu ka sheekaynay oo dhamme waa wax saariga laysku yidhaahdo ee aqalku ka dhisan yahay. gurgurna waa wixii lagu manafacaadaa ee hoos yaalla oo markaasu u kala kacaya isagiina nooc. bal horta qabo haanta, ama ha lagu lusho ama biyo ha lagu shubto, iyada hormuudu ah. waxaa ku xiga ubooyinka subaga lagu shubto ee lagu kaydsado ee aan weligood xumaynin ee baarahada la yidhaahdo ee galbeed ka baxa ee la xaragaysiiyo ee sida quruxdale loo sameeyo ee la safo aqalka wanaagsan ee qaaliga ah baa ku xiga. waxaa ku xiga bahalkan la yidhaahdo qumbaha iyo tebadda oo markii hore inta aan la baranin waxa maacuunta ah ee inooga yimid dhulka ajnabiga, wixii aynu subaga ku shuban jirray ku kaydsan jirray waa qumbaha iyo bahalkaa la yidhaahdo tebadda waxaa laga sameeyey harag adhi. haraggii adhiga unbaa loo sameeyey gilgillo 3 hoosaa laisu weydaariyey, markaasaa camuud laga buuxiyey. haraggii xaggii qaliinkaa la sarraysiiyey, xaggii dhogorta lahayd oo la xiiray oo la wanaajiyey baa markaa la hoosaysiiyey. camuud baa laga buuxiyey, geed baa laga laalaadiyey, markaasaa camuuddii lagu disay sida jooniyadda marka hadhuulka lagu cabaynayo oo kale. kolkaasay simantay, markaasay saa ku qallashay, markaasaa dabadeed halkaas inta la hufay oo la wanaajiyo camuuddiiyo wixii laga dhameeyey oo suba kale markaa lagu dhaqdhaqay ayaa sidii loo dabooli jiray ee looga ilaalin lahaa. ma garanaysaa wax u taga subagaa saasuba halkaa loogu shubaa. kaa waxa uu caada subaga oo iska kulul ilaa wixii saan weeyaana laguma shubo oo isaguna cilmiya buu ku dhisan yahay. bal hadda waxay la tahay raggii kalena inuu maaragtay u wada diyaar yahay, yaan ka laasanini dee saaxiibkay fuqbiraale u dhiib. haddana waxaan u wareegayaa dhinaca fuqbiraale oo isagu gurigaas baadiyaha dhowr aroos ku galay oo nin aqoon dheeraada u leh guryaha miyiga, guriga miyiga iyo qaybihiisa inta u kala baxo. fuqbiraalow guriga miyigu
bal adiguna qaybahaaga iyo saad u arkayso waxaa suurtowda inaad inkastaad reer nugaayada isla tihiin inaad kala gedisan tihiin oo adigu dhowr meelood baad aroosi ka gashay bal maxaad oran intaa aw daahir uu yidhi magaca guuda anugu waxba ku dari maayo waan la qabaa aw daahir sidaa uu yidhi hase ahaatee waxaan qaybinayaa udubada laba waxaa la yidhaahdaa labada udub xoog waa labada fooda la isu saara midna waxaa la yidhaahdaa udub dhexaad oo waa ka dhigta dhexdiisa lagu muda laba udub oo kalaa jira oo iyaguna la yidhahdo udub duceed udubba dhinac isaguna ka qabta udub raareed baa jira oo isaguna dhigta raarta ah lagu haya lixdaa markay noqdaan waxaa raaca haddii aqalku duubasho culus leeyahay oo gabadha gaarida ah ee aad uga digtoon inaan aqalkeedaas uusan xumaanin duubashadaa faraha badan waxay u samaysaa qori la yidhaahdo heensaraar heensaraarkaasi wuxuu leeyahay laba faraar oo waaweyn markaasaa saas loo saaraa duubashida si ayan ciiddaas hoose uusan aboor uga soo gaadhin ama bahashan cawagudda la yidhahda ayan u soo gaadhin oo duubashadaas ayan wax ka cunin duubashadaasna waxaa loola dan leeyahay waa mid raasamaal dambe laga rabaado maalmaha ay tahay feestada ama damashaadka ama aroosba la samaynaayo ama gabadha gaaridaha ee gabadhi u joogto oy leedahay mar baad wax dhisi doontaa sii kaydi yaa duubashadaasna loogu dan leeyahay udubadii intaasaan u qaybiyey waxaan kaloo raacinayaa dhigaha qabaxa ah qabaxaa sidaa uu dahar u sheegay baan la qabaado waxaa weeye lool iyo dhig loolku waa kuwa duurka laga sameeyaa ee saa isugu soo laabma isugu soo girgirinma laba noocba waa lagu maraa dushooda marka la maro xadhig xoolaad waa lagu maraa dhigta iyo loolkaba xadhig la sameeyadoo cad oo xagga galbeedka u badan oo hadhowto la asli doonana waa lagu sameeyaa oo waa lagu maraa marka qabaxaas wuxuu markaas ka qaysan yahay udubka sidaan hore u sheegnay iyo loolka iyo dhigaha inta qabaxa la yidhaahda waa intaas ma garanaysaa qoriga ka samaysan haamihii xaggoodii u kici maayo oo wuxuu ka sheegay ow daahir kuwa ugu muhiimsani waxaa weeye haanta marka dhowr nooc baa loogu kala dhawaaqaado oo marka la dhaaminaayo waxaa la yidhaahdaa dhoon horaad waxaa markaas ku xigtada waa laba dhoon horaad iyo laba dhoon dambeed oo intaasu badiba waxay ka qayb galaan dhaanka xaggiisa waxaa jira haan kale oo iyaduna la yidhaahdo haanta lagu lusho oo iyaduna sida reerku u kala xoolo badan yahay qola aagaan bay ku lulataa qola dhikil bay ku lulataa qola waxay ku lulataa haantaa dhoon horaada oo kale oo wanaagsan oo ama qaba ah ama argeega oo caashaan si wanaagsan loo aslay oo loo xooleeyey oo fiican yaa reerka xoolaha badan ee lo-da iyo ilmaha waxa laga lushaa waa lo-da iyo ariga sida reerkaas u kala xoolo badan yahay baa haantaana loogu lushaado iyaduna waxay la eg tahay kuwa dhoon horaadadaas oo kale kuwa yaryar ee aan dhikisha ku sheegin ama agaanta ku sheegin waa kuwa gabdhuhu uguba heesaan naagaha ee haan yahay dhigdhiga dhabar yar waagii dharaarow iyo soomana dhanaanaatid markay ku lulaayaan cashaan iyadaa laleeyahay waa yartahay adigu dhikil yahay marka hintaas ayaan uga baxayaa erayadii anoo aan sii badanin rag badan oo murti badan hayaana iga dambeeyeen ama gabdho badan halka kale ay joogaan waana mahadsantahay waxaa kaloo jiray odag kale oo isaguna wuxuu ku yahay aad iyo aad aqoon badan u leh waxa waaye dhegaweynow adigu bal saarida keliya ka dood saaridii ka dood waana sheegaynaa shayba meeshu ka anfaco intii aanu ka naqaan wey horta duubasho haddaad maqasho waa ninkan u gaadhay oo leh naaguhu ma wada lahaa aqaladuna ma wada lahaa waxaa jirtaa aqal aan inta la dhisanayo iyo heryadaba dhaafsiisnay oo aan duubashoba lahayn baa jirta waxaa jirta aqal ay duubashadu siyaado tahay oo markay waxna wax ku heeriyeysato awrtii waxna dhiskii uga hadhaya duubasho kaasaa la yidhaha ka saddexda heensaraar loo sameeyo ee midna dhexda yahay midna labada madaxya ee la isdul saaray aqalka hagaajiya ee suradda aada maqashay waa taa oo waa duubashada mid kale shayga aloolka la yidhaaha naaguhu aqalka waa ila xidhaan naagta wanaagsane gaariday waxay doonaysaa marka aqalkaba la soo galo inaan ninkii muuqanoo foodaba marka la gasho ninkii oo iska jiifa durba la arag marka sida qaalibkaa wuxuu ka shaqeeyaa ila xidhkaa oo isaga badiba waa lagu ila xidhaa oo inta docdaa lagaga soo dhiso oo barbar lagaga soo dhiso yaa barbarka kalena la laabaado udubkii udub dhexaadka ahaa yaa dacalka loogu soo xidha dhagaatii buu leeyahay ku xidhan oo markaa ila xidhka waa shayga keena weeye
kaasuna waa mid kan kale kabedda horta aloolka waxaa ku samaysan xadhig iyo suuf iyo jil oo aqalka oo dhan ka dhexeeya dhigaha jil baa gala oo saantan adhiga la jeexaya maaragtay adhiga lagu arrada aqalka lagu duubayo jil baa la yidhaha magaceeda jilkaa waa lagu saabiya oo aloolkaa lagu sameeya oo dhigaha lagu mara magaciisa gudiya jil baa la yidhahdo kama baxdo aloolkaa bir waa jil oo orgida yaryar ee dhalata yaa laga jeexaa markaa jil baa la yidhaahdo waa laga sameeya qaarna suuf baa laga sameeya qaarna xadhig baa laga sameeya oo xadhig caadi aba marmar loogu dhex daraa dabeetana meydhax duf la yidhaahdo oo maleegna la yidhahdo dufna la yidhahdo naaduhu dabada ka maleegaan oo ay u qiyaaseen iyo xadhig baa iyana lagu sameeya waa la samayn jiro iyadoo u dhisan madaxay ka xidhaan oo waa ku heesaan oo waxay usii dhigaan cunay usii dhigtaan oo waa dhib badan naagti kabedelahay kaalin darane adaan kayd usii dhigan bay is yidhaahaan marka ay ku heesayaan koronkor cuni mayno haruurka wey koronkor cuni mayno oo kariba mayne karuur geel ma lahayaabay leeyihin xadhkaha magacyo yara kala leeyihin oo xadhig bay korka ka wada yihiin qaar yeel baa la yidhaahaa qaar cayb baa la yidhaahaa qaar waxaa la yidhaahaa gibil xeer qaar bayd baa la yidhaahaa qaar waxaa la yidhaahaa mara oo waa xadhigga aqalka lagu maraayo maraa la yidhaahdo waa xadhigga ay aqalka ku maraane dhigaha iyo ku maraan oo dhiga maraa la yidhaahaa qaarba meel buu ka shaqeeyaa mid hoggaan baa la yidhaha waa ka awrta lagu hoggaamiyaan mid dabar baa la yidhaha waa ka lagu dabraa midba meel buu ka shaqeeya dhigaati mid la yidhaha dhigaati dhigaatigaas shay walba aqalka intaa leeg wax allaale waxa saaraya shay walba wuxuu kaga xidhiyay faruurta dhigaatigaas aloolku ku xidhan yahay oo hararadu mid walba ku xidhan yahay oo kabaduu ku xidhan yahay oo shaygii kor loo qaado dhigaatigaasaa ku aqalkao dhanna shaygii kor loo qaadaba xadhig baa ku xidhan oo ka laga wado haddaan xadhigaasi ku xidhnayn la rari kari maayo si loo wadala lama yaqaan horta intaanu ka naqaanana waxyaabahaasanu ka gaadin waxaan dib ugu noqonayaa ninka la yidhaahdo fiqburaale fiqburaalow waxa kan la yidhahdo suradda oo bal gurigaa gudihiisa waxa la suro bal gurigaa laba daryaalaha ah oo weyn oo arooska loo sameeyey oo gabadha loo soo gelbin doonayo wiilka maxaad odhan lahay bal suraddaas u koob taas horta la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sudhayo sudhayo waynu ogsannahay oo halka kan magaalada ah waxaa laga yidhahdaa takabane yaa la yidhaahdaa waa af shisheeye innagu afkeenu waxaa weeye sudhayo sudhayadaas marka aqal la dhiso oo aqalladu way kala duwan yihiin waxaa iska jira aqalla hadba si uu u kala saabaan badan yahay ama u kala dhar badan yahay ama u kala xab wanaagsan yahay ayay sudhayadu ka soo baxdaa sudhayadaas waxa la sudhaayaana waxaa weeye aqalkii waa la dhisay marka aqalka la dhiso ama wuxuu leeyahay udbo faraara leh ama wuxuu leeyahay ligligyo haamaha ku waxaysan ama wuxuu leeyahay dhigo iyaguna wan wanaagsan oo dhinacyada ka saaran markaas dharkii reer miyiga waynu garanaynaa oo dhar badan ay saas u sursuraan ma ay laha laakiin wax la sudhaayaa waxaa weeye weelkii yaryaraaye muleenka la odhan jiray weelkaasu marka muxuu noqonayaa midmitan waxaa ka mid a dhiisha wax lagu kaydiyo oo odaygu markuu maqan yahay dhiishaasoo iska wanaagsan oo dhiisha oday la yidhaahdo iyadoo had iyo goor halkaa iska sudhan oo waxaa la sudhayaa udubkaas yaa la sudhayaa waa kow waxaa jirta mid kaloo iyaduna la yidhahdo dhiil qur-aan oo dhiisha dhowrtada la yidhaahdo oo marka caanihii lagu soo waxiyo iyadana halkaa la iska dhigaa oo la yidhahdaa marti hadday ama timaado ama marka tacdaad la samaynaayo oo beel badan ay halkaa isaga dhowdahay maalinta toddobaad in laysugu tagaayo la qaadaa la geeya waxaa jira bahalkan isagana jiraabka la yidhaahdo jiraabkaas oo haweenku had iyo goor wax ku ritaan ay ama saqafa ku riteen ama geediha ku riteen ama wax kasta waa ku riteen taasna waxaa la yidhahdaa sudhayaday ka mid tahay waa kow waxaa jira isaguna ohligaasuna waa la mid oo jiraab iyo ohligaasu waana isku mid waana kala duwan yihin yarahe ee midna waa mid guriga iska jooga oo halkaa wax lagu sudhaa midna waxaa weeye sidii boorsadii bay ka dhigan tahay oo markay gabdhuhu adhiga raacaan ama ay waxay soo sameeyeen wax qaraab la yidhaahdo qaraabka ay soo samaynayaan waxaaba jirta inay dhir galoo la arkaan oo diirtaan markay diiraan maydhaxdaa iyay calaliyaan
markay calaliyaan bay soohaan intay soohaan bay markaa geedi ka dhigtaan geedigaas ay ka dhigtaan oo ay soo hayaan markuu u soo buuxsamo soo waxayo halkaasay ku kaydsadaan isaga waa kow waxaa kaloo jira ohligaas ama jiraabkaa lagu ridaaya madiishaa lagu ridaa mudacaa lagu ridaa maxaadkaa lagu ridaa waxyaabahaas oo dhan waa mulooyinkiibuu ka mid yahay laakiin waa qayb aan dhulka la dhigin ee la sulo had iyo goor gadowyagaa teedsan ee faraha badan leh wixii dhara oo aan markaas la qaadanaynin maalin la rabo in la qaatana waxaa lagu ritaa ama abxadda ayaa lagu ritaa abxaddaas ama oo sanduuq ka dhigan abxaddaas oo ka dhigan sanduuq oo kale ayaa lagu ritaa waa kow waxaa jirta iyaduna mid kale oo iyaduna xashin la yihahdo xashinta marka dhar lagu warito laakiin xashintaas wixii raashineed dibadda laga keeno oo ama midha leh ama leh haddii la maayo yicib leh ama haddii la maayo masage leh waa xashin oo iyaduna waxaa weeye kaydka gurigay ka mid tahay iyaduna bariidka iyada laguma shubo laakiin bariidku waa iska gooni isagu wixii sudhayo la yihahdaa waa waxaa fudud ee ama harag laga sameeyey ama maydhax laga sameeyey oo ohligii noqonaya ama orgii laga sameeyey harag adhi laga sameeyey oo la tolay kuwaasaa horta sudhayo la yidhaahdaa waxaa kaloo soo raaca waxa la yidhaahdo sati baalka la yidhaahdo masafta ama gunada la yidhaahdo ama kuwa kay gunada yaryar oo iyaguna magaalada xaggeeda ka soo gala lana sameeyo oo cawda laga sameeyo oo toliina laga sameeyo iyaduna haweenku ay ku keetaan inda kuusha iyo muxuu ahaa alaabtooda yaryar ee iyaga nadaafadooda ku saabsan ay ku ritaan iyaguna marka kuwaasaa la yidhaahdaa sudhayo sudhayadaasuna marka waxay ka soo dhex baxdaa muleenkii aqalka dhexdiisa ahaa iyay ka soo dhex baxdaa oo alaabtaas marka awrkii la raro iyagu malaha ligligiya isqabsanaayo markii la raro awrkii xaaswalwaalka ahaa ee haamaha iyo qumbayaasha iyo tebedaha iyo baalkan muxuu ahaa ee gembisaha waxaa weeye saab la sameeyey oo qurux loo yeelay oo laga dhigay lagu sameeyey markii caashaa saas loo sameeyey afkiisi saas laga dhigay ayaa ama lagu sameeyaa xadhig geedid oo qurux badan oo la aslay ama lagu sameeyaa xadhig xoolaad oo la isugu xidhaa lagu sameeyaa afkiisana waa la simaa isna liglig buu yeelanayaa kuwaas markii awrkii xaaswalwaalkaa lagu teediyo la raraayo yaa hintii aan idii sheegay ee sidaha lahayd yaa misna la surtudaa oo meesha la yihahdo hebelow waxaa wataa dhiil caanatee leh awrka iitaar oo maxaa la odhanayaa iisul weeye macnaha awrkii waa wada raraya markaas waa la sudhayaa iyadii oo waxaa la sudhayaa haan ligligeed yaa la sudhayaa ama uba ligligeed hadba kii adag yaa la sudhayaa ila weyn buxdaa dhiisheeda inta sudhayada la yihahdaa waa hintaa qaybtaa ka soo baxda guriga dhexdiisa ee aan iyadu gelaynin teedka dhulka ah ee la dhowraayo bisla ee halkaas cashan fiiro gaara loo leeyahay intaasaa sudhaya la yihahdaa innagoo aan moodayo inaynu ku wada ayidi doono gooni-goonina ereyada qaarkood u qaadan doona ayaan waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo ereyga kan la yidhaahdo surayo ama suradba si nin kastiba si kasta ha u dhehee waxaan u wareegayaa dhinaca gurgurka oo daahir afqarshe daayana uu qayb weyn ka qaatay haddana waan ku celin doonaa gurgurka bal qaybaha gurgurka daahir afqarshow halkaan aan ku dhaafno u dayno ninka la yidhaahdo fiqi buraare aan u dayno waxa la yidhaahdo surayada bal adiguna qaybaha gurgurka maxaad ka oran lahayd gurgurka bal gurgurka qaybihiisa guud oo sare mar gurgurka adaan hoos u degaan digin maasanid gurgur waxaan kuu sheegay markii u horreeyey aqalkii markuu qaybsamay waa anigii ku idhi waa gurgur iyo saari saariguna waa waxa dhisan gurgurna oo wixii hoos yaalla labada qaybood waa anigu kala qaaday markaa gurgurkii noocyadiisu waa ay badan yihiin lambar one waxaa u haamaha oo qaarnay biyaha leeyihiin qaarna ay caanaha leeyihiin haanta caanaha biyaha laguma shubo iyadoo sabel abaari dhacdo ay khatara gasho maaha oo way ku xumaanaysaa labadaa waa la kala ilaaliyaa taweyn waxa la yidhadaa dhoon oo waa dhoon horaad halkii aynu maarata ka kala sheegaynay oo dhoontaasu ama waa lagu lushaa ama biyaha lagu dhaansadaa markaas dhoon horaadaasaa lambar one u ah
dhoon dambeed baa ku xigta marka awrka la rarayo weeye haan kale oo saddexaad oo awrku hadduu dhaansan yahay waxa haraadana kaa hor yimaada iyo dadka dhaanka wadaaba ay cabbaan oo xagga dambe kaga xidhanina way jirtaa oo saddexaad haamahaasaa horta lambar wan u ah ha kala yaryaraadeen ha kala waaweynaadeen midba wakti baa loo baahanayaa goor walba caanuhu isma la eka goor walba biyo badan oo la dhaansado looma baahna mid waliba xilliga ay leedahay baa la doonayaa in maaragtay lagu manaafacaado dhoon horaada tan weyn ee biyaha ah marka dabada biyaha halkan ceelgaab oo kale laga soo qaadanayo awr loo rari maayo haan wastaani oo hooyadu qaadan karto ayay markaa u baahan tahay kasoo biyaysato maaragtay balliga kan ku dhow waxaa horta haamahaasaa lambar wan u ah waayahay waxaa ku xiga waxaan la yidhahdo baarahada ama ubada ninba si u yaqaano ee subaga lagu shubto ee laga beero galbeed ee aqalkeenna markaa ugu quruxdana badan leh ee sidaa loo safo aqalka qaaliga ahee la doonayo in maaragtay ha laysku xaragaysiiyo warkaa waa kanuu leeyahay ubabare sabciin ahoo askar fayluna moodo ingiriisa la moodo marka uu ninku geerarka ku tirinayay sidaa loo safo oo dabadeedna aqalka qaaliga ah sidaas oo kale ayaa loo safaa baarahadaas oo dhar cad inta lagu sameeyey iyo xadhig dhanna ka guduudan dhanna ka cad xadhig caare la yidhaahdo oo xadhigga kan saab caaraha lagu sameeyo oo markaa haddana mara kale lagu gadfo oo cad haddana habaaska lagaga qarinayo saabkeediina la wada aslay meeriska u sarreeyana mara cadoo maxamuudiyaa lagu sameeyey xoolana laga buuxiyey oo muqmad iyo maxawash iyo duniya dabadeedna ay ka buuxdo oo dabadeed tacabkii soomaaliyeedba uu halkaa ku dhan yahay kuwaasaa horta markaa ku xiga